madaxweynihii hore xasan sheekh ee waqtigiisu dhammaaday maanta uma baahna in wax laga weyo waa markhaatiga nool. qofku waxa uu mimbarka masaajidka ka sheegaa way ka duwan yihiin waxa uu bannaanka ka sheego. isagaa markhaati isugu filan. hadduu one day isdhegaysto wuxuu garan lahaa waxa uu ku hadlay iyo waxa uu ku jira waxa ay tahay. Soomaaliya xaalad dib u heshiisiina ayay ku jirtaa. muddadii hadda la soo dhaafay laga soo bilaabo burburkii dowladda carta laga soo bilaabana Soomaaliya waxay ku jirtay dib u heshiisiin. doorashada la qabtana waxaa inta badan u ahayd bays dib u heshiisiin iyo Soomaaliya bal inay wejigaas weji ka bedelaan ay gaadho. taasaana inta badan lagu soo meelmarayay. marxaladaha la soo marayna kulligood waan garanaynaa. deegaankan aan joogno Jubbalandna waan garanaynaa. waxaan horta ku baaqayaa gogol inaan u fidino dadka reer Jubbaland oo aan wixii dib u heshiisiinayay cid wax ka tabanaysa aan isu keeni doono haddii Ilaahay yidhaahdo. iyadoo maanta ay Soomaali deegaanka ugu badan deegaanada kale ka duwan uu yahay haddana ma laha maanta khilaafyada iyo qabaa'ilka isku dhacyada badan ee ka jira maanta Soomaalida inteeda kale. sidaasoo tahay haddana asal waxaa noo ah dib u heshiisiin inaan samayno. caqabadaha jira ee siyaasaddu waa mid aan isleeyahay marxaladdii hadda loo baahnaa way ka tagtay. dowladda waqtigeedu dhammaaday waxaa caqabad ay la timid noqotay inay wixii la isku ogaayo waxaan shalay ka dagaalamaynay kulligood intii laga tago ay dib u heshiisiintii meesha ka baxdo. xilligii doorashada ilaan doorashadu waa tafaahum dadku isku og yihiin oo waxay dadku isla fahmayaan in intii laga taga maanta ay noqoto nin walba inuu yidhaahdo xataa inuu garan waayo waddanka xukumo midka uu yahay. oo maanta ilaa waqtigan aad arkaysaan oo waqtigii dowladda xukunkeedii teeramkeedu uu dhammaaday ayna jirin wax maanta laga wada hadlayo iyo wax la isku ogyahay midkoodna si indhala ahaana lalaguma socon karo. waddankaad maamulaysana inaad garanaysa midkuu yahay yaa asala. waddanka aad xukumayso inaad garanaysa midka uu yahay baa asala. golaan samaynay gogolo badan baan dhignay waan isku daynay dowladda inaan xal la gaadhno laakiin wax way ka socon weyne. waxay ku riyootay oo laga hadlay doorasho qof iyo codaan gaadhaynaa. doorasho qof iyo codaan waxay dhaxal siisay doorasho dabran. mid dadban baa laga hadlayey. mid dabran oo laleeyahay hebel hebel baa madaxweynaha hebel hebel baa sidaa noqon hebel hebel baa sidaa noqonaya. maanta halkaasaan maraynaa. madaxweynihii hore xasan sheekh ee waqtigiisu dhammaaday maanta uma baahna in wax laga weyo waa markhaatiga nool. qofku waxa uu mimbarka masaajidka ka sheegaa way ka duwan yihiin waxa uu bannaanka ka sheego. isagaa markhaati isugu filan. hadduu one day isdhegaysto wuxuu garan lahaa waxa uu ku hadlay iyo waxa uu ku jira waxa ay tahay. maalin walba waxbaa laga hadlayaa waxbaa la samaynayaa. Soomaaliya hadday sidan kusii jirto talo badan bay gaadhaysaa. waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oon u cudur daaro dadka Muqdisho ku dhiban ee la barakiciyey. aan odhan karo odayaasha golaha mustaqbalkuna shaqo badan bay ka hayaan. wax walba isku dayeen tanaasul badan bay sameeyeen. laakiin reer Muqdisho waan idinla qaybsanaynaa dhibka aad qabtaan waan idinkula jiraa. waxaadna ogaataan dowlad kasta oo timaadaay dadkaa la dulmiyey ee la barakiciyey inayna ku socon doonin. qof kasta oo dhulkaas dulmiga iyo dilaalayda samaasirada hadda soo baxay waagi hore waxaa jirtay hogaamiye kooxeedyo iyo dagaal oogayaal iyo hadda dhul boobayaal iyo dhul sharciyaystayaal iyo dhul dilaalayaal baa jira in laga daba tegayo oo sharcigu loo siman yahay. qof walbana ha u calaamadaysnaada meesha uu deganaa. dowlad kasta oo timaadaa taa way ka daba tegaysaa. taasaana hadafka golaha mustaqbalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladdu ay yihiin. waxaan odhan lahaa madaxweynihii hore madaxweyne xasan nin odayaa tahay taariikh baad soo martay ha ku khaatimo xumaysanin. kuwa kaa xoog badan oo kaa awood badan baa sidaa ku joogi kari waayey. talada dhulka iska dhig dadka isugu yeedh. haddii kale maalin walba qof waliba siduu kaaga tegaya adigoo keligaa yaad ku soo hadhaysaa. carruurtaadana uquba uga cabso. hahda iyo habaarka iyo cuqubada dadka waalidiinta waaweyn iyo dadka dhahala iyo kuwa lugahala iyo ka soo yeedhaya waalidiinta iyo maanta kuwii ciidanka ahaa ee dagaalka shabaab iyo inay waddan difaacaan u joogay haddana reerahoodii la barakicinaya waa dhibaato xoogna ku dhacaysa. aad iyo aad baan reer Muqdisho waxa ku dhacayaan uga cudur daarayna waana idinla qaybsanayna.
Soomaaliya maanta dawlad dhexe ma jirto waqtigeedii wuu dhamaaday waxa maanta garoomada iyo xanibaadaha iyo deegaanada wax walba la siyaasadeynaya wax lagu aamini karaa ma jiro dawlad dhexe oo wax lagu aamini kara oo wax lagu haleyn kara maanta Soomaaliya kama jirto sidaa daraadeed waan soo saari doonaa mowqifkayaga waan cadeyn doonaa golo mustaqbalka waan ku cadeynay ka Jubbalandna waan ku cadeynaynaa Soomaaliya waxay u baahan tahay dib taladeeda in gacanta dadka lagu soo celiyo dawladaha kale ee ku dhex jira dawlad waliba ha ogaato Soomaaliya inaan si walba loola dhaqmi karin saaxiibada Soomaaliya waa inay qadariyaan dadka Soomaaliyeed waxa ay yihiin iyo waxa isu yihiin laakiin ayna noqonin masaalix marka cid ay leedahay in la yiraahdo cidaas noo fulinayso saas ay yeeli karayso hal la iscafiyo tasaamux hal la badiyo dadku duruufta lagu jiro waan garanaynaa xaaladaha adduunka oo dhan baa wax badan ka jiraan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum.